Singapore dawlad faqri ah oo shacabkeedu cudur iyo gaajal ay daran yihiin wadooyin biyo wasakh daadsan yihiin dadkana ay rafaad la degay laakiin markay shacabka Singapore dhexda xirteen sidaan ayuu xaalku isku bedelay. Singapore markay xuriyada heshay waxay la midowday Malaysia 1963 laakiin muddo yar kadib Malaysia ayaa go'aasatay inay iska tuurto Singapore dawlad aad u dhul yar khayraad aan lahayn faqri ah dadkeedu jahli yihiin waxbana aan haysanin culays waxaan ahayn kama faa'iideyso Malaysia sidaas darteed waad fasaxantiin ayaa lagu yiri laakiin heshiis iyo gacan isqabsi ayaa xigay oo ka imaaday gudaha dadka Singapore dad kale iyo ciidamo qalaad ma walaaleynin waxay u midoobeen maslaxada Singapore iyo sidii rafaadka ay isaga dulqaadi lahaayeen xilligaas warbaahinta galbeedka waxay ku tilmaamtay tuuritaanka Malaysia ee Singapore mid bixitaana maanta Singapore waa dal aad u horumarsan dhaqaalayaasha adduunka ugu waaweyn kamid ah leh guryo dururaha soo taabanaya wadan nadiif ah iyo shacab ilbaxsan shacabkii shalay deganaa buushashka maanta filooyin ayuu degan yahay Singapore waa xarun ganacsi oo caalami ah degada Singapore waxay kamid tahay shanta degadood ee ugu dhaqdhaqaaqa badan caalamka oo dhan baasaboorka Singapore wuxuu ku jiraa kaalinta koowaad ee caalamka wuxuu la siman yahay kan Jarmalka shacabka Singapore gacmaha dad kale uma horsanin kumana baaqin in ay qaramada midoobay la soo gaarto gargaar degdeg ah horumarka Singapore wuxuu ku bilowday dhisida maraakiib sameynta qalabka korontada sifaynta shidaalka kaasoo soo jiitay shirkadaha waaweyn ee caalamka sida shirkadda Shell maalgashatayna bilowgii sagaashamaadkii Singapore waxay noqotay xarunta saddexaad ee ugu weyn caalamka oo dhan sifaynta iyo waxa laga sameeyo shidaalka sidoo kale xarunta saddexaad ee ugu weyn ee lagu kala iibsado caalamka oo dhan shidaalka New York iyo London ayaa ka horeeyay xilligaas inta badan shacabka Singapore wuxuu lahaa aqoon wuxuuna ku noolaa guryo nadiif ah 1960kii oo ahayd waqti uu Ingiriisku joogay wadanka Singapore wax soo saarka dalka iyo xitaa masaalixda Ingiriisku wuxuu ahaa $7 bilyan oo kaliya sanadkii dakhliga qofka Singaporeeska ah waagii hore wuxuu ahaa $435 taasoo ka dhigan bishii $35 oo kaliya halka maanta uu yahay dakhliga muwaadinka Singaporeeska ah $80,000 sanadkii isku celcelis qisada Singapore waxay daliil u tahay in isbedelku ka yimaado gudaha shacabka la bedeli karana ummad dhibaataysan si ay ugu noolaato nolol bini'aadanka u qalanta fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar kuna soo biir kanaalka haddii aadan weli ku soo biirin lana soco muuqaaladii u dambeeyay